senatarada golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk Soomaaliya ayaa ansixiyay sharciga doorashooyinka oo ay ka doodayeen maalmihii la soo dhaafay isla markaana maanta ay marinayeen aqrinta saddexaad. Guddoonka golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk Soomaaliya ayaa markii ay dhameeyeen aqrinta saddexaad iyo doodihii hindis sharciyeedka doorashooyinka waxa ay u golaadeen in ay u codeeyeen kulanka oo shirgudoominayay gudoomiye Cabdi Xaashi sidoo kalena ay ku sugnaayeen ku-xigeenadiisa. Waxa codkii loo qaaday sharciga doorashooyinka qaranka 27 senatar ayaa aqbaleen halka ay diideen 6 senatar. Ansixinta kadib guddoonka golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk Soomaaliya ayaa sheegay in sharciga doorashooyinka dalka uu dhankooda ka soo dhamaaday isla markaana uu u gudbayo madaxweynaha dowladda federaalk Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Gudoomiyaha guddiga ku-meel gaarka ah ee aqalka sare u qaabilsan kabaaraan degista hindis sharciyeedka doorashooyinka qaranka ayaa golaha uga mahad celiyay ansixinta sharcigan oo muhiim u ah doorashada dalka. weydiiseen waxa waaye waa shirka maxaa ay maanta aqalka sare wuxuu ku wajahnaa yani shirkii yani sharcigii doorashooyinka qaranka. sharcigaas doorashooyinka qarankana waxa waaye wuxuu soo socday muddo dheer, wuxuu soo maray golaha shacabka oo muddo dheer uu soo agyaalay, kadibna waxaa loo soo gudbiyey aqalka sare. aqalka sarena wuxuu soo maray akhrintiisii koowaad iyo akhrintii labaad oo aad looga dooday oo xildhibaanada aqalka sare qof kasta uu ku daray maaragtay fikirkiisii isee la ahayd yani qodobadii qornaa. maanta marka waxaa la iskugu yimid akhriskii saddexaad iyo muxuu ahayd natiijadii kama dambaysteedu ahayd codeyntii aqalka yani sharcigaas. haddaba waxaa dib loo akhriyey muxuu ahayto xildhibaanadii yani nin walba contributionka uu ku daray iyo sida yani wixii laga qaatay oo guddiga uu ka qaatay iyo wixii aan laga qaadanin. marka ugu dambeyntii natiijadii ayay yani la soo wada gudbiyey. balse waxaan rabaa halkan inaan yani amani bogaadina ugu jeediyo guddiga runtii waa shaqo culus ayuu soo qabtay, way aragnimada waa muujiyey. runtii aad iyo aad dadaal weyn soo sameeyay bacdama oo ahaa runtii sharci aad iyo aad yani u dhib badan. ugu dambeyntiina waxaa la geliyey codeyntii baa la geliyey. marka codeyntiina waxay noqotay sharcigii in uu ku gudbo 33 joogtay 27 inay ogol ku gudbiyeen saad idinkaba gobjoog u heedeen 6na muxuu ahayto ay diiday. saasoo marka yani sharcigii uu ku noqday muxuu ahayto mid ansaxa. qodobka kale ay weydiiseen oo ku wajahnaa xogaa doodii meesha ka dhacday iyo gabdhaha iyo haweenka. run waa qoondada haweenka waa mid meesha ku jirtay oo laakiin oo aan aad loo soo tixgelinin. wax kale ma ahayn, waxaa yani dib looga eegayay muxuu ahayto sharciga ama qodobka 23aad qodobkiisa afaraad ay ku qotontaa arrinta qoondada haweenka. waxaana xusaysaa in yani sharci gaara laga soo saari doono, labada aqal ay soo saari doonaan muxuu ahayto arrinta qoondaha. laakiin qodobahan wuxuu ku qoran yahay 23aad qodobka 23aad yani qodobkiisa sharciga 23aad qodobkiisa afraad ayay ku xusan tahay. arrintaasna waa arrintii qoondaha haweenka ee maanta dooda dheer dhaliyey. sida guud ahaan waxay ku dhamaatay runtii si aad jawi aad wanaagsan runtii aad iyo aad waan rajaynayna insha Allah taala inay yani ay sida loogu talagalay ee u dhacdo sida yani maaragtay xusan iyo wax muxuu ahayto runtii wanaagsan inay ka soo baxaan insha Allah taala. aad iyo aad saxaafadda gobjoog baa ahaydeen, waa badnaayeen qodobo qaar badana waxaa lagu sameeyey yani wax ka bedel lagu sameeyey ama amendment. haddaan soo xuso waxaa ka mid ah qodobkii aan soo jeedinayay akhriskii labaad oo ku wajahnaa matalaadda magaalada muqdisho ama gobolka banaadir iyo maqaamkiisiiba waa la qaatay. waxaana ku soo bixi doontaa baa la yidhi sharci oo soo saaro maaragtay labada aqal ay soo saari doonaan. waxayna ka mid ahayd waxyaabihii ugu muhiimsanaa oo muxuu ahayto ku wajahnaa yani su-aalihii laga keenay iyo iyadoo marka hore aan la soo xusin muxuu ahayto matalaadda yani magaalada muqdisho
doorashada matalaadda doorashada magaalada muqdisho si fiican. maxamed amiin cabdirasaaq aadan, bulsha TV, muqdisho. ma og tahay in tiifiyada Soomaalidu ay u wareegeen satellite cusub oo gaadhaya in ka badan intii uu gaadhayay satellite-kii hore. qaaradaha laga daawanayo waxaa ka mid ah Afrika, Asia, qaybo ka mid ah Europe iyo dunida inteeda kale oo looga daawanayo nidaamka IPTV. haddii aad joogto Afrika waxaad ku heli kartaa si fudud. hoos u yara dhig diishkaaga xubinta suulka in le'eg kadib ku baadh frequency-ga ku soo baxa adiga oon jihana u wicwicin diishka. ku baadh frequency-ga si aad u hesho dhammaan channeladaas. mahadsanidin.